Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidi ayaa kulan la qaatay laamaha amniga ku sugan degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Kulanka ayaa mid looga hadlayay amniga guud ee degmada Marka iyo sidii loo kordhin lahaa xaqiijinta amniga degmada Marka iyo deegaanada hoostaga. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Nuur Sidi oo la hadlay kulanka kadib warbaahinta ayaa sheegay in ay sii socon doonaan kulamada noocan oo kale ah loogana hadlayo amniga iyo waliba isdhexgalka bulshada ku nool gobolka Shabeellaha Hoose. Alxamdulillah sayyidina Maxamed wa alihi wa sahbihi awlan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aad waxaan ugu mahad celinayaa senatarka aqalka sare xildhibaan Xuseen Cali Xaaji Suldaanka oo iyo saraakiisha maxaan ku radaa heer maxaan ku radaa nabad sugid military police ciidanka kale maxaan ku radaa khaaska ah degmada Marka iyo deegaanada hoos yimaada runtii iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose isku duuban inay ka soo qayb galaan qada sharaftii maanta aan ku sameeyay gurigeyga oo degmada Marka runtii oo ahayd maxaan ku yiraahdaa runtii in meelaha la isku warsado dhinaca amniga guddiga amniga heer gobol iyo heer degmo maxaan ku yiraahdaa inaan maanta isku warsanay bilawnayna in amni laga hadlo salaaligeeda marka waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha degmada Marka Cabdullaahi Cali Waafow oo suurtageliyay runtii amniga iyo maxaan ku yiraahdaa deegaankan iyo maxaan ku yiraahdaa inay nabad noqoto dadka la isku xiro in maamulada maxaan ku yiraahdaa gobolka iyo degmada maxaan ku yiraahdaa inuu maxaan ku yiraahdaa asaga laftiisa kaalin muhiim ah ka yahay oo maxaan ku yiraahdaa maalmaha soo socdana shirka amniga degmada Marka shirka ugu horeeyay maxaan inaan qaban doono gobolka Shabeellaha Hoose xarunta gobolka oo gudoomiyaha degmada Marka laftigiisu maxaan ku yiraahdaa guddiga amniga maxaan ku yiraahdaa ku dhawaaqnay inuu gudoomiyo yahay sida maxaan ku yiraahdaa taliyaha saldhigga booliska degmada Marka taliyaha ciidanka niisa ee degmada Marka taliyaha ciidanka militariga degmada Marka taliyaha ciidanka maxaan ku yiraahdaa militariga degmada Marka taliyaha ciidanka asluubta maxaan degmada Marka taliyaha ciidanka amisom degmada Marka intaas oo dhan waxa gudoomiyaha amniga degmada ahna duqo magaalada Cabdullaahi Cali Waafow aan ansixin maanta maamulka gobolka Daanahay dhammaan degmooyinkana maxaan ku yiraahdaa waxaan ku boorinaynaa inay ku daydaan gudoomiyaha degmada Marka nabadoon Cabdullaahi Cali Waafow waxaan u mahad celinayaa runtii qada sharaf ay ahayd oo guriga goboltooraha macnaha in dadku dhan ay imaadaan oo saraakiishii madaxdii maamulka degmada maamulka gobolka intaas oo dhan qadooyinkan waa socon doonaan sida nabadoonada ururka haweenka ururka dhalinyarada ururka beeraleyda ururka ganacsatada ururka dhakhaatiirta ururka maxaan ku yiraahdaa kalluumaysiga dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waa meelaha maxaan ku yiraahdaa lagu kala warqaato oo maxaan ku yiraahdaa oo lagu wada sheekaysto wixii dhib jira wixii dheef jira wixii xog jira kulli maxaan ku yiraahdaa meelihii maamulka gobolka maxaan ku yiraahdaa uu ku dhaqi lahaa gobolka fikradaha meesha laga heli lahaa maanta ay bilaabatay khayr bilaaw iyo kabla waaye salaaligeeda marka insha Allah taala ajuusada aada ka bilaaway ana iska bilaabay marka in dadka ma la dhax fariisto la yiraahdo ma fayda foolka u fiican tahay salaaliga in maxaad qabtaa la yiraahdo qofka oo maxaa jira in la yiraahdo laakiin inaan xafiis la isku soo xirin guri la isku soo xirin aan maxaan ku yiraahdaa hotel la isku soo xirin dadka la dhax tago Xamdi Dhool Hirshabeelle TV Jowhar